السلام عليكم ومدى الصومال مالك جوجتو وإذن سلامي وأوديك اللي هتجيركم ولكم وتكعري ما أنت أرين آدي أدو فرحة إن لقيب سنة oo runtii caafimaadka u fiican oo dhaqaalaha u fiican oo bulshada u fiican khaasatan dadka xanuunsan oo kaliya xanuunka qaba ama sokorta ama blood pressure qaba aad iyo aad ugu fiican tahay arintaas ida walaalaha sharafta leh waxa aad loogu baahan waliba waxa aad ugu baahan dadka qurbaha jooga arintaas ida وأرين نبينا صوبنا صلى الله عليه وسلم نقول بوري وجور وي هذا جور أباهنت هاي لمبر كشاشة دان صوت صاري دونه منا توصل يسوع كرتا منا وص أبيوليه مالك جوتو يسوع نبينا صوبنا صلى الله عليه وسلم حييه يا معشر الشباب من استدعى منكم الباءة فليتزوج يعني دغيري قفك أود إنه جورسد ها جورسدو dhalinyarada bis nabiga sallallahu alayhi wasallam joode dadka dhan way qafka guurlaana waanka xul ayaama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli soo ayada ma markaan walaalaha sharafta leh hadii amar ilaahay gabar aad tahay ama aad tahay gabar guur soo martay fadlan lambarkaydaas waa private waxayda dhan waxa weeye waa private and confidential lambarkayda uma isku soo diraysaa واتسابك يعني مسج ما يسو دريسا ان شاء الله تعالى انا قفي عن كور رادريه رجع ايغنا ساسو كلو لمبركيد ام بعد ما تقانا مسج كسو دافيسا واتسابك مغعاده iyo lambarkaada ay dhaafaysa aniga insha Allah ajir ka raadsanay meeshan qurbaha la joogo khaasatan waxa loogu baahay waxa weeye dalkeena oo kala maaha dalkeena waxa weeye waa la arki jiray bulshada isku dhax jirtay reeber gabar u joogta leeyahay ama gabar ma taqaana guur soo marto garooba u joogta la leeyahay yani waa la yaqaanaa laakiin qurbaha nin kastaba koonu ku jiro la isma arkayo dadka marka waxay noqonaysaa in la isar raadiyo marka fadlan waxaan ku bariyaa caafimaadkaada weli u fiican weli ragga Soomaaliyeed la hadla war hadaad xanuunsan tahay walaalo gabar Soomaali oo sharaf leh ma weyn hadiilaysa xoolahaada kan olow oo guriga deg oo gabadhaas la deg oo wixii ma taqaana adiga ku fiican suubi oo biir ku qarkood way shaqeeyaan lacagtaas yarta oo gabadha biilka ugu baxay ka faqiireen ilaa wallahi waxaan la kulmay nin xanuunsan ninkaasna waxa saas u yeelay waa iskaabulonimo soo iska xanuunsan iskaabulaya markaan waxaan ku leeyahay u quur xoolaha naftaada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna li rabbika alayka haqq rabbigaada xaq buu ku leeyahay عبادات ويلقاها كتير شنت صلاة وعكوا هيك إن لنفسك عليك حق نفت هذا حق بيك ولا حق هذا الشيء حق هذا وحكمت هذا الجورلان تجور زنيه نفت هذا أوه الرئيس نقال هذا هذيك النولو مركا واحد جرى ظروفه ماشان أي جرى هالكائن أكو عديه يبدأ واحد جرى عرون هايستان نينك أما كردنتي أما وافري جور وارب عن حلاله لكن gurigii ninkii meel ma taqaan carruurtu ma soo dhex gali karo oo qaarkood noocaas jira waa dhaqan qurbaha laga yaqaan amar ilaahay dalkeen wax laga ma yaqaan gabadha ayadoo 5 6 7 haysata nin kala guursan jiray meesha marka waxay leeyahay maadaama guriga ay yar yihiin meel hadda ninkii uu saxda ma laha waxay leedahay waxa laga yaabaa inaad nin u baahan tahay ha xishoonin meesha ay soo dhaaf nin marka gurigiisa haysto dadka ku dhalay ka doonaya oo fankixuuna biidin ahliin ku dhaqmayo ilaahay muxuu yiri gabdhaha ka doono dadkoodi ahalkoodi idinkooda ka doono yiri iska doonay wadada islaamku maraya gurigaada carruurtaada aad baraysa laakiin gurigiisa haysto oo mantaqaana adigan aad raali ka tahay asna u raali ka yahay ayaa ku haya message ii dhaaf magacaada ii dhaaf lambarkaada ii dhaaf bas waa private and confidential alafdoonkii shaashada la soo qabsanayay oo runtii qofku profile kaada galay waxa ta la ogaanay ma aha meesha waxa way waa private and confidential hada alxamdulillah dhowr qofaan isku dardaray alxamdulillah ilaa ma iskale ilaahi anigu baa isla ogay dadkii gabadhaas dhalay marka anigu waxaan ku leeyahay yani ila soo xiriir أجرا كراسنا عنيقو وح إلهي أصبره
oon ka raadsano xoolaha malaha marka wiilkana saasoo kalo adigana waxaan ku leeyahay haddaad u baahan tahay gabar ama gabar guur soo martay haddaad u baahan tahay adigana mees ii dhaaf insha allahu tacaala marka waa isku kiin darayaa idinka is shukransada idinka is mataqaana profilekii idinka is sheega idinka is ogaada hadda isku bogtaan fillahi alxamdulillah qof waaweynaa tihiin hadda isku bog waysaan dhibana mees kale ay soo diraysaa wax kale dadka dad isku ku faajira dad kale idin raadinayaa marka fadlan waa ku baryaa guurka waa caafimaad wey wallaahi waa caafimaad weliba khaasatan dad xanuunsantahay guurlaan ha joogi niyo ragga Soomaaliya la hadlaa taraagu wadaa taxi wadaa bas wadaa isguurtu ku jira lacag ururnaa ayuuti balaan ku jira kule waa iska bulo cunto maanta ma la taga way cunaya maanta ma la cunto yar asaga nafle inuu karsanayo tuuro warwalaalo waxaas ka baxo la haada hadda adag noolaan hadda yani yaa ka noolaanaya markaan fadlan lambarkayda meesha ku qoran yahay shaashadan ku soo qoriya insha Allah taala isoo wac marka meeska miidaf waxaa kale oo intaan ku darsanayaa ummadda isu gudbi arrintan waa baahi weyn loo qabaa qurbaha khaasatan maraykan dad ku noosho gabdhaha waxaa jira xataa rag waxay rabaan only holiday u umaada yani holiday bis ay rabaan waa fahamtay soma gowde waa guur xalaal ah waa fahamtay soma maraykan isku noosha halkaanaad gabar ka rabtaa ayarkoo mataqaana lambarkii dhaf anaa ku haya gabdha noocaas waa fahamtay soma يعني سنة كذا 3 jeer 4 jeer هولي مركز ده الشقي رجع شقي أو يعني إسكو ملك السعادة قبل الرجال كعاد كهيني ساسي الرجال كعاد ودي جور كان وجور 100% الرجال سكية ما بين سوما وواحد كسر لك العدينية جور كانوا يعني وحاول يورى له شوية لما تقول في الرجال سكية وحنا هالمرة نقول إني أنا قد بصاروا هالمرة نقول قبل ده كيد وين لقى دور markaan adiga waxay ku adaa ku taala marka wixii kale oo adiga dadkaadi iyo qaraabadaadi iyo familkaadi taas aday ku taala laakiin gabadhan familkoodi iyo maxay ahaydey iyo aruurteediba waxa waaye marka isbarataan ka bacdi arrintaas ina waa saad loo dhameeyna marka fadlan u sii gudbi ummadda Soomaaliyeed kale man dal ala khayrin ka faacile guurkan qurbaha aad baa loogu baahan yahay wallahi mar dhawaan bilaabay waa la yaab inta qof ila soo xiriirtay فاهمين سوما marka dad u baahan tahay la soo xariir wax shir laga marabo waadiyo ilaahay dartiis weeye marka magacaydu waa Macal Usmaan xaafadda UK jooga London. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.